dhalinyarada kooxaha fanka iyo suugaanta kooxaha baambiga deegaanka iyo bulshada qaybadeeda kala duwan halkaasi oo shacabkii iskugu yimid ay halkudhigyo kala duwan ay ku soo dhaweynayeen madaxweynaha sida soo dhaweyn kadib waxa uu madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar oo waqti yar oo gaaban oo nasasho ku qaatay qolka khaaska ah ee garoonka diyaaradaha ee Garadwilwal kadib waxa uu madaxweynuhu waqti kale la qaatay shacabkii iskugu yimid garoonka diyaaradaha ee Garadwilwal ee iskugu soo baxay inay si diiran u soo dhaweeyaan madaxweynaha deegaanka kadibna madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar ayaa loo soo galbiyay xagga iyo qasriga madaxtooyada deegaanka waxaana wadada labadeeda geesood tubnaha laga soo bilaabo garoonka diyaaradaha Garadwilwal ilaa iyo qasriga madaxtooyada deegaanka shacabka qaybihiisa kala duwan oo halkaasi ku soo dhaweynayay madaxweynaha iyagoo wadada la taagnaa caleemo qoyan iyo calanka deegaanka kadib markii uu soo gaaray qasriga madaxtooyada deegaanka ayaa waxa uu halkaasi kula hadlay madaxweynuhu saxaafadda isagoo ay hareer taagnaayeen madaxweyne ku-xigeenka deegaanka mudane aadan faarax iyo marwe firdawse maxamed afayeen ku-xigeenka golaha xildhibaanada deegaanka waxaana madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar sheegay sida la socotaan tan iyo markii isbedelku ka hana qaaday deegaanka Soomaalida 5 bilood ka hor shacabku waxay muujinayeen taageero ballaaran oo dhinac walba ah iyo hooba ah sahaate waxaa soo noqonayay arrimo caqabadooyin jiray oo la xidhiidhay in isbedelku si loo rabay uu hore ugu soconin kala aragti duwanaansho la xidhiidhay sidii markii dib xisbiga loogu yeegleeyay lahaa jirtay arrimahaas oo markii dambe keenay in maaragtay xogaa saxaafadda iyo ay galaan isku maaragtay kala hadal fara badan taas si wanaagsan inaan uga xaajoonno ayo yaabadsan u tagnay dhammaan wixii jirayna waa isku soo afgaranay waxaan hadda rajaynaynaa in si dhaqso ah maaragtay isbedelkii loo dardargeliyo oo ummadda looga faa'iideeyo si dadku ay maaragtay u dareemaan deganaansho siyaasadeed iyo mid amni oo xoogga loo saaro dhanka horumarka kala aragtiyaashaas jirtay waxaa dhex booday oo damacay inay ka faa'iideystaan shabakad haraagii xukuumaddii hore iyo maaragtay dadkii tacadiga ku sameeyay shacabka iyo dadkii ka taajiray dhiigga shacabka oo weli si daba socda dhaqanadii xunxumaa ahaa in lagu wareegaysto xafiisyada ciidamada iyo xafiisyada federaalka iyadoo dadka lagu dacweynayo mas'uuliyiinta deegaanka lagu dacweynayo waxaalihii shacabku ay dalbanayeen ee u baahnaayeen oo ay ka mid tahay Soomaalinimadu oo ay ka mid tahay in dulmiga la diido iyo halganku oo ay ka mid tahay diinta iyo akhlaaqda wanaagsan in la taageero waxaalahaas iyadoo dadka lagu dacweynayo shabakad u badneed dad maaragtay ka faa'iiday dhiigii shacabka intii maaragtay dhiigu daadinayay tacadiyadu socdeen iyagu qandaraaso iyo miisaaniyad iyo lacag ka heli jiray oo haddana u tafaxaytay inay sii wataan dhaqanadii noocaas ahaa iyo ololayaal fara badan oo ka dhana xukuumadda ka wadi Addis Ababa iyo dhulkaas iyagoo si khaldan u soo dhigayay xaqaa'iqa ka jira deegaanka waxaa maanta shacabka ugu bashaareynaa in dhammaan isku dayada noocaas ahaa si buuxda looga adkaaday shacabkuna maanta laga bilaabo uu fili doono in isbedel dhab ah oo dhinac walba dhinac siyaasadeed mid amni iyo mid horumarineedba loo jihaysan doono waxaan ugu baaqaynaa mar kale dadka noocaas ee akhlaaq xumada iyo dhaqan xumada weeqaysa midnimada ummadda Soomaaliyeed ka shaqeynaya inay ka waantoobaan haddii ay ka waantoobi waayaan waxaa mas'uuliyad naga saaran tahay in si isbedelkan uu taabagalo talaabooyinka loo baahnaa ka qaadano taana waxaan rabaa inaan shacabka u cadeyno inaan dib looga waaban doonin waxaan aad iyo aad u mahadnaqaynaa shacabka deegaanka Soomaalida
oo si buuxa isu garab taagay xukuumadda muujiyayna wadannimo aan hore loo arag iyo isku duubni aad iyo runtii maaragtay loogu farxo wax kastoo caqabado dhacana waxaa laga faa'iidaa faa'iidooyin baa ka yimaada marka iska qabsigii hadda jira waxaan ka faa'iidnay in dadkeenu ku midoobaan aragtidoodana ku muujiyaan inayna maanta u baahnayn in dib loo noqdo oo dadka lagu maaragtay dhaqamadii jawaasisnimada iyo wixii macnaha aan lahayn ee ahaa in dadka lagu caayo Soomaaliya uu aaminsan yahay diin buu aaminsan yahay inay waxalihii noocaas ahaa maanta ay noqdaan waxyaalo maaragtay ceeb ka noqdo shacabkeenu ay diidaan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay guud ahaan inahaas ayaa ka soo baxay maalmaha soo socda insha Allah waxaan soo bandhigi doonaa qorshayaasha laga qaatay dhinaca dib u yeelidda iyo dib u habeynta xisbiga iyo dhinaca maaragtay mashaariicda horumarka labadaba iyo dhanka nabadgelyada waad mahadsantihiin soo dhaweyntii ballaaran ee shacabka deegaanku ay ku qaabileen madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar oo muddo aad u kooban hawlo shaqo uga maqnaa deegaanka ayaa waxa ku dheenayd kalsooni iyo kalgacayl shacab